السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله قالية وإذن سلامي سلام كدب ما أنت وحان ربا إنان إذن لو ذاقو عبيتان آدي أقيمة بلا إيقو قالية عبيتان كاز إنتان أقود قلين وحان جعلهاي إن آن إذن سلامو وان إذن شاقو وحان إذن كغلا صوداهاي وحان صوداهاي إيانتان إلاد فرسما أي هايستي فرسما أوغيد أيان qadka ugu soo daahay waayo idinka baba joogi kar waan idin soo xiisaaya mar walba waxaan jeclahay inaan idin la wadaago waxa aan hayo runtii maanta waxaan soo diyaariyay barbiatar ama beetroot si aad u taqaaniinba beetroot kan ama barbiatarka aad ay u fiican yahay waxaan isdhahay horta waa aniga juice-ka aan everyday aan cabo waaye oon wax badan aan ka dareemay waayo jirka ayuu nadiifiyaa jirka ayuu aad iyo aad nadiif aga dhigaa. That's why aniga aan u doortay in aan idin la wadaago markii aan sameynayo waxaan is iray asxaabtaada saaxiibadaada walaalahaaga Soomaaliyeed u baahan yihiin in ay ka faa'iideystaan beetrootkan. Beetrootka waa la yasayaa aad iyo aad u fiican yahay waxa ku jira fitamiino aad u badan. Fitamiinadiis ma laga soo sheekeyn karaba xataa dadka raba inay iscaateeyaan way isku caateyn karaan. Wuxuu leeyahay nadaafad aad iyo aad u weyn salyabaar wuxuu xataa ka nadiifinaya maxaa la dhihi jiray cholesterol dadka qabo way cabi karaan saliidaas ayuu ka dhaqaaya indhahaaga iftiin zaid u sameynaya oo caafimaad leh. Waxa ku jira fitamiino kala badan iyo iron ku jira beetrootka asxaabteyda qaaliga ah. Anigu waan soo shiitay laba xab beetroot ayaan soo qabtay waan jarjaray waan shiiday hal glass biyo ku daray because kan waxaan u rabaa special laakiin mararka kale waxaan u sameystaa mid oo yani juice caadi aan ka dhigaa biyo ka dhigaa xogaa biyo aan oo zaaidiyaa laakiin kan special waaye qof aan ugu talgalay maanta oo rabi inaan oo nasiyo ma sha Allah waan soo shiiday laba xab waan jarjaray markaan jarjaray laba qaado gal oo malab ama hal qaado malab aan ku daray waa cabaaya qofkan arrimihiisa ku fulsanaya arrimahaas arrin qaas ah waaye laakiin asiqaasatan arrimahaasna waa loo isticmaalaa si oo guudna jirka u nadiifiya daily hadaa u cabtid galaas seeka ah wallahi waa ka dareemay walaashayda qaaliga aheedo oo aan jeclahay tijaabi this ku fiican yahay cabitaan aad u fiican waaye hormoneska wasaqdi oo cuntada laga qaaday oo kiimikada ahayd cuntooyinka saliidii jirkeena ku dhacday fimanka oo korkeena ka soo baxayo xataa anti aging ayuu leeyahay yani qofka age-kiisa wuu wixinaya walaalahay qaali waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku cusubtiin channelkan